السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابت أنا جعلنا هاي كسو دوادا جنال كينا كحرو فخرجة إن شاء الله هدو بوينا قدر ما أنتو حان إذين وضع 10 تحاني إنو أهان دونو 10 كاس أو أن كاهد لدونا جليدة أو أفتقلات كاللغو دهو ميز scientific name keedu uu yahay Neziya Maize. Hadduu eebaweyne inoo idmo intuu 10kan inoo socdo waxaan kaga hadli doonaa faa'iidada dhaqaale ay u leedahay galeyda, asal ahaan meesha ay ka soo jeedo galeyda, sida loo kala qaybiyo galeyda, carada ay u baahan tahay galeyda, cimilada ay u baahan tahay galeyda, qaabka loo beero dalagga galeyda, nafaqada sida loo maamulo dhirta ama harma ama jaanka sida looga maamulo galeyda, biyaha sida loo maamulo, cayayaanka iyo cudurrada soo weeraray sida looga maamulo, xilliga goosmada galeyda iyo sida loo gooyo iyo sida lagu ogaado in ay bislaatay. Maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iido dhaqaale ay leedahay galeyda. Faa'iido dhaqaale ay leedahay galeyda waxaa ka mid ah waxay ka mid tahay galeyda dalagyada ugu badan ee la soo saaro caalamka. Galeyda waxaa lagu magacaabaa boqorada xabuuqa ama badarka. Galeyda waxa ay ka mid tahay dalagyada lagu quudiyo xayawaanada iyo bini'aadankaba. Galeyda waa isha ugu muhiimsan ee laga helo carbon dioxide. Nafaqada laga helo galeyda ee hadhuudhka waxaa ku jirta 10% borotiin, 4% oil, 70% carbohydrate, 2 ilaa 3% fiber. Galeyda waa isha laga helo vitamin A and vitamin C, vitamin E iyo necotoxin acid iyo riboflavin. Laakiin waxaa ku yar galeyda maadada loo yaqaano tryptophan and leucine iyo calcium. Galeyda waxaa loo isticmaalaa in xayawaanka loo siiyo cuno ahaan iyo bini'aadamka. Waxaa loo isticmaalaa warshado iyada oo laga soo saarayo sida in wax lagu adkeeyo, in wax lagu qamiiriyo iyo in wax lagu macaaneeyo. Galeyda waxaa lagu isticmaalaa in laga soo saaro bur, mishaari ama boorash iyo seed iyada oo loo isticmaalayo daango. Xaska galeyda waxaa laga soo saaraa biomass. Inta aan ku kulmi doono qaybaha kale ee inoo xiga waxaan idinkaga taginaa sidaas iyo amaano Allah. Hanaga hilmaamin share-ta, comment-iga iyo subscribe-ka. Like waxay inoo tahay dhiirigelin. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan naga faa'iidaan nagu soo biir.